السلام عليكم daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan waa saaxiibkiin Waliid Maxamed beejka aad daawanayso waa isla Waliid Maxamed waxaan ku rajeynayaa maalin qurux badan iyo muuqaalkan adigoo caafimaad qaba in aad daawato waxaan ku soo gudbin doonaa sheeko xiiso badan oo baraha bulshada aad u qabsatay qof bukaan ah ayaa waxa lagu talaalay kili doofaar haddaba qisadaas iyo halka ay ka dhacday iyo sida ay u dhacday muuqaalkan ayaad ku ogaan doontaa ha iga tagin ee muuqaalka dhameeso dhaqaatiirta qaliinka Mareykanka ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in kili doofaar ay ku talaalaan qof bukaan ah iyaga oo sheegay in ay rajeynayaan in ay ugu dambeyn arintaas xalin doonto in kiliya la'aanta ka jirta caalamka ay xalin doonto lagana maarmi doono in qof kale uu kilida amaahiyo qofka kilida loo geliyay ayaa ahaa mid maskaxdiisu dhimatay taas oo ka dhigan in markii horeba xaaladiisu ay liidatay oo aan rajo laga qabin in uu bogsado kelida waxa laga keenay doofaar taas oo hidda ahaan la bedelay si looga hortago in jirku uu aqoonsado in ay tahay mid qalaad oo markaasna uu diido shaqadan ayaa ah mid aan wali dib u eegis lagu sameyn ama aan wali la daawicin balse qorshaha ayay ku jirtaa in sidaas la sameeyo tijaabooyin taas la mid ah ayaa hore loogu sameeyay xayawaanka balse waa markii ugu horeysay ee bini'aadan lagu sameeyay arrintaani in doofaarka loo adeegsado talaalka xubnahan ma ahan fikrad cusub qalfoofta wadnaha ayaa hore loogu adeegsaday bini'aadanka xubnaha doofaarkana waa kuwa si wacan isku qaadan karaan xajmi ahaan kuwa bini'aadanka oo waxaa la leeyahay xubnaha bini'aadanka iyo xubnaha doofaarka waa isku eg yihiin intii lagu guda jiray qaliin 2 saacadood qaatay oo ka dhacay jaamacadda New York University ayaa dhaqaatiirtu waxa ay kilida doofaarka ku xiriiriyeen halboolayaasha dhiigga ee bukaanka maskax ahaan u dhistay si in caadi ah ay u shaqeynayso loo hubiyo labadii cisho iyo barkii la soo dhaafay ayuu si dhow dhaqaatiirtu ula socdeen kilida iyaga oo ka qaadaya tijaabooyin dhowr ah madaxa baaritaanada Dr. Robert Mugarmi ayaa sheegay barnaamijka World Tonight ee BBC-da isagoo la waramayay waxaan aragnay kili u shaqeynaysa kilida bini'aadanka oo kale oo doofaar laga soo bixiyay shaqada bini'aadanka kilidooda ay qabato ayayna qabataa mid lamid ah ayuu yiri waxay u shaqeynaysay si caadi ah mana diidin in ay shaqeyso dhaqaatiirta qaliinka ayaa ku talaalay qayb ka mid ah qanjirka doofaarka oo weheliyaan kiliyaha waxay u maleynayeen in xubintan ay gacan ka geysan karto joojinta jirka bini'aadanka oo diidaya kiliyaha mustaqbalka dhow iyadoo kor u qaadaysa unug kasta oo difaaca jirka ah oo laga yaabo in uu si kale ula dagaalamo unugyada doofaarka xaqiiqdii waan fahansanahay walwalka iyo waxa aan dhihi karo waa hadda in qiyaastii 40% bukaanada sugaya in kilida laga bedelo ay arintan oo kale u baahnaa lahaayeen waxaan doofaarada u isticmaalnaa cunto ahaan doofaarada waxaan u isticmaalnaa daawooyinka joojinta dhiigga waxaan u maleynayaa in aysan sidaas ka duwaneen ayuu yiri dhakhtarka qaliinka fuliyay waana arin cajiib ah oo anigaba aan la yaabay fadlan haddii aad muuqaalka dhameysatay waxaan ka codsanayaa in aad like saarto aadna share gareyso si uu saaxiibo badan iigu gaaro waa ku mahadsan tahay daawashadaada magacaygu waa Waliid Maxamed